السلام عليكم أصحابتي إذا كسر دوادا channel إسماعيل عبد الله waxaan idin wadaa wararkii ugu dambeeyay saakay maxaa ka socda Baydhabo xiisad amni duulimaadii la hakiyay iyo khilaaf siyaasadeed oo cirka isku shareeray magaalada Baydhabo ayaa saakay laga soo sheegay xaalad kacsanaan ah halka dawladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo khilaaf xooggan u dhaxeeyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya si faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa daqiiqadaha soo socda fadlan nagu soo biir like saar share garee hana ilaawi inaad subscribe gareyso si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay xiisad amni oo ka taagan Baydhabo duulimaadidii Baydhabo oo hakad galay khilaaf siyaasadeed oo dhaxeeya federaalka iyo koonfur galbeed kulamo siyaasadeed oo ka socda Baydhabo howlgalo amni oo ka socda qaybo kamid ah Soomaaliya xaalad bini'aadanimo oo weli taagan muranka doorashooyinka oo sii xoogeysanaya haddaba gudaha u galno warkeeni magaalada Baydhabo saakay waxa laga soo sheegayaa xaalad amni oo aan weli degin kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay dhaceen isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada kala aragtida duwan wararkan ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa magaalada uu yara xadidan yahay ciidamo dheeraad ah la dhigay wadooyinka muhiimka ah dadka shacabka ah ayaa dareemayaan cabsi iyo hubinti la'aan xiisada ayaa la xiriirta khilaaf siyaasadeed iyo amaro ciidan oo ka soo kala baxay dhinacyo kala duwan duulimaadyadii oo hakad galay waxaa weli saameyn laga dareemayaa go'aano ay qaadatay dawladda federaalka oo lagu hakiyay duulimaadyadii tagi jiray Baydhabo arrintan ayaa saameysay ganacsiga hakisay safarro muhiim ah dad badan ku xayirtay magaalada Muqdisho khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa sii xoogeysanaya madaxweynaha maamulkaas Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa wada kulamo siyaasadeed ka hadlay faragelin la sheegay ku baaqay in la ilaaliyo madaxbanaanida maamulka waxaa magaalada ka socda kulamo u dhaxeeya siyaasiyiin odayaal dhaqameed saraakiil amni kulamadan ayaa diiradda saaraya xasilinta amniga yareynta xiisada siyaasadeed wada hadal xal u helid ah ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgalo ka wada gobolka koonfur galbeed deegaano ay ku sugan yihiin al-shabaab sidoo kale waxaa socda muranka doorashooyinka waxaas xoogeysanaya muran ku saabsan nooca doorashada ee dalka waqti la qabanayo saameynta siyaasadeed mucaaradka ayaa dalbanaya doorasho hufan in la cadeeyo qorshaha dawladda sidoo kale wararkeen maanta waxa uu waaweyn xaaladda bini'aadanimo qaar kamid ah gobolada Soomaaliya waxaa ka jira abaaro iyo biyo yari dad barakacay ayaa wili ku jira xaalad adag dawladda iyo hay'adaha gargaarka ayaa wada qorshayaal gurmad ah caawin loo fidinayo dadka nugul guud ahaan saakay Soomaaliya gaar ahaan Baydhabo waxaa ka taagan xiisad amni iyo mid siyaasadeed waxaa jira saameyn ka dhalatay go'aano dawladda dhexe dadka shacabka ah ayaa wajahaya xaalado adag wixii ku soo kordha wararka waa idin soo gudbin doona mar kasta haddaba ku soo dhawow page-kana like noo saar noona share garee aad amaasantihiin